بسم الله الرحمن الرحيم halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa boqor cilmidow anigoo oo ka wareysanaya anigoo ah wariyaha wareysanaya Maxamed Saalax Xasan oo ka wareysanaya boqor cilmidow arrimihii foosha xumaa tahriibka ay dhalinyarada reer Somaliland ka soo tahriibay ama Soomaaliya oo dhanba ka dhacay doomihii halka ku dhintay dadkii badnaa ee wiigan aynu ku jirno ka dhacay aan ka wareysanayo boqor cilmidow ku soo dhawow waa dhawahay waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah boqor cilmidow boqorka boqorada Cawil Xasan Gaaruf waxa aan islaamayaa ummadda Soomaaliyeed ummadda muslimiinta iyo meel kasta joogto waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu arrinta aad sheegtay haddaan Maxamedow wax ka yara idhaahdo waxa weeye dhibaato inagu habsatay iyo aafo ballaaran oo inagu dhacday oo ummaddeena haysata weeyaan in da'yartii ay badaas ka soo daadso baahi aynu tilmaano oo aynu idhaahno baahidaasaa soo kaliifaysa oo ku kaliifaysaana ma taalo sidaynu ognahay Soomaali dhammaanteedba meelaha qaar dagaalaha ka jiraan haddana nabad meelaha si u badan yihiin nabad baa ka jirta sida Somaliland Puntland nabad baa ka jirta waxa aan runtii u sheegi lahaa da'yarta Soomaaliyeed meel kasta joogtay tahriibaysa qurbo wax yaalla ma jiraan war dalkiina aamina war dadka dhamaanaya speed baarkeeda ka dhiganaya idin furfurtay ee aatifiyada ka barsax ku qaata war qurbo waxa loo kaco dhul gacan la qabtaa waxa lagu saddex lagu tag saddex diin waad soo fidinayso iyo haddaad bugtad caafimaad u tagtay iyo haddaad waxbarasho ka soo korsanayso waxaad moodaa in wadamada gaalada u soo guuray waar wacyigelin wadamada nabadgelyadu ka jirta sida Somaliland oo kale iyo gobol goboleedyada degan sida Puntland oo kale wacyigelin ballaaran hal la sameeyo baan ugu walaalaha wacyigelin ballaaran hal la sameeyo dadka shaqo abuur ha loo sameeyo waar aynu dadaalo waar aynu aafaynu ugu dhacday aafada meel kasta aad joogtaan qof kasta xil baa ku saaran waxaan qaba qurbo jooggeena inay sabab u tahay dadka badaas ku guray qurbo jooggeena la hadlayo waliba warni walba adigoo 10 sano maqnaa oo 2,000 gini dib ku soo ururiyay ama 2,000 dollar oo wiigu soo dhoofay saayid indhasarcaad shacabkaaga oo inta wadan nimcaaba ka mishinada lacagta lagala baxay biyaha dabada durduraya caana qasab laga dhamaa oo beenu sheegto oo dadka hiyi kiciso waar ka daawno lama taala halka ka daayo qurbo jooggo dalka marka tagtaan reality ka sheekeeyo waana waxba oo ka sheekeeyo war sawiradana iska qaasan gudal bas ka qaasan ummadda carabteedka oo sameynaysa mid soo daadinaysa iyo kharaabada marka ku soo maqlayda maalin soo urursan mid ku soo urursan waa dadka reality ka sheega oo qurbo jooggu dadka reality ka dhacay taaytaas ku dhaafaya taaytaas ku dhaafaya waxaan si aad ugu hambalyeynaya oo aan kastoo raagay aad ugu hambalyeynaya abaaraha ka dhacay Somaliland shacabka Soomaaliyeed uu madaxda yahay Xasan Sheekh uqaashale odayaashale madax garadeed kale oo dhaqameedada leh sida fiican wax ku oolka ah ka yeelay u keenay Somaliland dadkii abaaru ku dhaceen xoolaha ka mariyeen baqtiga waxa halka ahaa u keenay guddoonsiyo wixii awoodi karayeen aad baan ku hambalyeynaya haddaynu wada dhaqameedanahay inagu Puntland ma kaliin Somaliland ma kaliin Soomaaliya ma kaliin inaynu isu socono oo aynu wax istaro oo shacabku waa wada socono oo hadba halkii jilicsan aynu ka hadalnaa inuu dhaqameedada xaq u leeyahay oo isu nimaadno ismartigilno soo dhaweyno taasaynu inagu aan ku xasbaya waa laga yaabaa in kasta oo waqtiga soo socda inaan xamar imaado anigu waayo anigu waxaan boqorka boqorada Somaliland waa u dhashay laakiin waxaan boqorka boqorada Soomaaliya oo dhanba waxaan u ahay boqorkooda dadka Soomaaliyeed oo dhanna waa soo dhaweynaya waana bogaadinaya sida wanaagsan ay gacanta u siiyeen walaalahooda baahan ee abaarta ku tiri taasaa ku soo dhaweynaya waxaana ku dadaalaya boqorka boqorada ah in aan xiriir aynu samayno uqaasha iyo odayaasha dhan kasta oo meel Soomaaliya ka joogaanba waana sii wadi doonaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقرأتي أنا قلت دوبي كدوبي ومهتني آدي بومهتني بقول.